jireen ahaa laakiin la soo cusboonaysiiyey hadda oo ah inaad si sanadlaha isugu timaadaan sida hadda adiga iyo xeeraaliyuhuba aad sheegteen inay hadda tahay sanadkii ugu horreeyey sanado badan kadib in bahda garsoorka oo dhan ay isaga yimaadaan dalka oo dhan si aad uga wada tashataan sidii loo wada shaqayn lahaa taas lafteeda waxaan aaminsanahay iyada lafteeda haddii la qiyaaso inay tahay iftiin cusub oo usoo ifbaxay ummadda Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay in maanta aad fursad dheer u hesheen in aad la hadashaan ama aad la doodaan madaxweynaha halkan idinkugu yimid oo runtii xoog badan geliya sidii garsoorka dalka wax looga qaban lahaa labadii sano dalka hadda aan joognay hadafyada waaweyn oo ay dawladdu ku dhisan tahay waxaa ka mid ah in la soo celiyo sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed in la xoojiyo qarannimada in dalku siyaasad uu helo xasiloon la dhammaystiro shuruucda maqan laga shaqeeyo dhaqaalaha laga dagaalamo musuqmaasuqa la siiyo ummadda Soomaaliyeed adeegyada ay u baahan yihiin laakiin dhinac walba marka aad fiiriso haddii ay tahay dunidu siday noola dhaqmi lahayd iyo hadday tahay dadka Soomaaliyeed sidii ay dowladnimadooda ugu qanci lahaayeen waxa ay tahay in uu jiro garsoor dadka Soomaaliyeed ay iimaanka ku qabi karaan waa furaha koowaad ee nolosha in qofku uu aamino waxaa jirta dawlad qaabka ay u shaqaysanaya cadaalad tahay maalintii aad u baahato inay dani kaa gasho garsoorkana aad ku niyad fiican tahay inaan lagaaga hiilinayn qof kaa xoolo badan ama kaa xoog weyn ama jago weyn haysta ama qabiilkaada mid ka duwan ka soo jeeda hawshaas iyada ah marka inaad isugu timaadeen oo aad ka wada hadasheen ama halkan isugu imaanaysaan waa muhiim dadka Soomaaliyeed ee jooga meelaha aad ka timaadeen iyo kuwa jooga meeshan hadda aad joogtaan intuba aad uga fikiri maayaan meesha ay ka soo jeedaan marka ay timaado arrimaha garsoorka iyo cadaalad laakiin waxay ka fikirayaan kaliya cadaalad noocee ah ayaan heli karnaa macnaheedu marka waxay tahay si ay dhaqaalaha dalku noogu hagaagaan ama musuqmaasuq aan u adkaano ama dawlad wanaag aan u samayno ama siyaasad ummaddu ay kulligood ku wada qanacsan tahay oo noogu hirgasho ama dunidu ay noo timaado ay u aaminto dalku inuu leeyahay dawlad shaqaynaysa waxaa lafdhabar u ah in garsoor lagu kala baxo uu jiro garsoor markii la tago aan dib loogu noqonayn dadka ka shaqaynaya ay shuruucda dalka u taalla fuliyaan oo aanay ka shaqayn dan gaara waa aaminsanahay inaad baahiyo badan qabtaan waana aaminsanahay maadaama dawladdu ay maalinba maalinta ka dambayso ku tillaabsanayso horumar iftiin u eg in waxa aad u baahan tihiin aad heli doontaan laakiin aasaasku waxa uu yahay inaad leedihiin nidaam aad ku wada shaqayn kartaan maadaama kulligeen hal dawlad aan ka wada tirsannahay dad keliya oo isku mid aan wada matelno kulligood ay rabaan hal shay oo ah cadaalad inaan leenahay nidaam ummadda Soomaaliyeed oo dhani ay u aragto mid hufan oo ka turjumaya danta guud inaad idinku nagu hogaamisaan oo aad nagu matashaan marka la yiraahdo arrimaha garsoorka waan soo dhaweynayaa waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha maxkamadda sare iyo dadka la shaqeeya waxaan u mahad celinayaa ragga iyo dumarka Soomaaliyeed ee ka yimid gobollada dalka oo dhan waxaan aqbalsanahay inuu garsoorku ka madax bannaan yahay xukuumadda si cadaaladdu ay u shaqayso waxaan idinkula shaqaynaynaa sidaas wixii ku soo aada xukuumadda oo aniga iyo madaxweynaha aad nooga baahataan si aad u fulisaan go'aanadii halkan ka soo baxay ama fikradihii aad isla garateen waan idinkala shaqaynaynaa
waxaa kaloo dhiirigelinayaa kulankan aad isugu timaadeen inaad joogtaysaan. waxaan dhiirigelinayaa inaan magaalada Muqdisho keliya lagu qaban ee gobolladan aad isugu tagtaan. waxaa kaloo idin xasuusinayaa marka ugu dambeysa aan gobollo kala ahaano laakiin meel walboo tagtaan waxaa naloo yaqaanaa dad Soomaaliyeed inaan si walba oo la isugu dayo in magacyo iyo midabyo naloo sameeyana way diideen qulubta ummadda Soomaaliyeed inay magacyo iyo midabyo kala yeeshaan. cadaaladdu waa tii dadka isku keeni lahayd. idinkuna waa mahadsantihiin shaqada haysaan. waa mahadsantihiin.